mudane Fataax Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka iidaan ee khudradleeyda suuqa waheen ee magaalada Hargeysa shirjarayda ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu soo dhaweeyay mashaariicda kala duwan ee xukuumada Soomaaliland toddobadii sano ee xilka haysay ka hirgelisay dalka waxaanu madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ku amaanay qorshaha horumarineed ee dalka ka hirgelisay sidoo kalena wuxuu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka iidaan mudane Fataax Axmed Maxamed qorshayaasha ballaaran ee xukuumadda Soomaaliland ku hawlan tahay waxa weeyaan xukuumadan talada haysa hadda waxay qabatay waxyaabo fara badan oo aanay xukuumadii ka horeeyay aanay qaban waxa koow ka ah in ay muxuu hayay ciidamadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u kordhiso mushaharaadkii iyo muxuu hayay wixii ay qaadanayeen ay 100% iyada oo wax yar dalka marka talada haysay ay u laban laabto waxa weeyaan wax ajaayib la yahay waxa kale oo samaysay darajooyinkii ciidamadii isku sumada ahaa markii hore ee aan ka sarkaalka ah iyo ka muxuu hayay tablaha inta midnaba aan la kala garanayn maanta waa kala soocan yihiin nin walibana xuquuqdii uu lahaa ayuu ka helay ciidamadii qaranka markaad aragto waad arkaysaa quruxdooda iyo qiimaha ka muuqda iyo inay la siman yihiin ciidamada muxuu hayay dunida ay maanta garab istaagayaan waxa weeye taa laftigeeda waxqabadka xukuumadda Soomaaliland ayay ka mid tahay waxa kale oo ay xukuumadani qabatay intii talada ay haysay ku guuleysatay in ay dadka barto sida wax loo wada qabsado taa laftigeedu waxay noqotay waxqabad lagu xusuusan doono xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa koow ka ah in dadkii iyaga oo muxuu hayay haday noqoto xagga waxqabadka wadooyinka oo maanta waqtiga iyagoo talada dalka ay qabteen iyo waqtiga maanta la joogo inta wado ee ay sameeyeen ay tahay yacni waxa la soo koobi karahayn waxay sameeyeen oo kale in waxyaabaha sida wax loo wada qabsado waxa kamid ahayd in ay istaakuleyntii abaaraha kale waayo waxa ka dambeysay xukuumadda oo qaabka u dhigtay iyadoo ummadii iyo muxuu ahaa iyagu isku tashaday dalalka jaarkeena yacni ay tahay runaantii waxay iyaga laftooda 10 ay yiraahdeen in laga barto Soomaaliland ayaa qurux badan oo yacni sida la isku qabsaday ee gamcada la isku taakuleeyay ee dadka la isku gurmaday ee aan cid waxba yacni aan cid waxba laga sugin ee wixii aynu haynay ku tashatay waxa weeyaan waxqabad ayay tahay laftigeedu waxa weeyaan intaas oo dhan waxay ku qabsoontay siyaasadda quruxda badan ee hufan ee ay soo bandhigtay muxuu hayay dawladdeena haatan talada haysa oo run ahaantii ay tahay mid ajaayib leh oo aad iyo aad u qurux badan intaa iyo in ka badanba xukuumaddu way qabatay marka waxa weeyaan de waxaan leenahay inta kale ee siyaasiyiinta ah ee dalka han kaga jiro waa inaad ku dayataan macalinkeena Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo dhinaca kalena wuxuu ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay ururka iidaan iyo waliba qorshayaasha kala duwan ee mustaqbalka dhow waxa uu ka koobay horta bulshada ka ganacsata guud ahaan suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee waheen waxa kale oo aanu ku rajooynaa insha Allah taala in aanu gobolada laftigooda aanu gaadhno oo gobolada qaar ayna dhex martay wada hadal oo aanu doonayno in aanu dalad guud ka dhigno dalada ururka iidaan aanu ka dhigno muxuu hayay Soomaaliland waxaanu ka qabanaa in aanu muxuu hayay waxyaabahan qabano waxa kamid ah in aanu cisbitaalka guud ee dhimirka ee caasimadda Hargeysa aanu awoodnay in aanu siino waxa maalin walba lagu isticmaalo ee qudaara ee tansiilaadka anaga u bixinay taas oo siina waxa kale oo qabanaa in aanu maalmaha iidaha iyo farxadaha laftigooda kama madnin si joogto ah la soconaa waxa kale oo qabanaa in aanu wixii kale qaranku muxuu hayay aanu muxuu hayay nooga baahdo ee dibadda ah ee hawle soo korodhay in aanu qaybteeda ka qaadano